bogga madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya ee Villa Soomaaliya ay ku leedahay barta Instagram-ka ayaa u muuqda in la jabsaday oo lala wareegay iyadoona lagu baahiyay muuqaal ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana bogga lagu soo daabacay inuu la wareegay nin lagu magacaabo Maxamuud Carab oo ka tirsanaa jiray wariyaasha Muqdisho oo haatan ku sugan qaaradda Yurub boggan oo ay saaran tahay calaamadda xaqiijinta inuu yahay bogga rasmiga ah ee madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya ee Blue Tick ayaa lagu baahiyay muuqaal uu iska duubay Maxamed Carab oo lagu dhaleeceynaayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Carab ayaa ka mid ahaa wariyaal Muqdisho ay ku xidhay dowladda Soomaaliya muddo xileedkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo qaba cadhadii xilligaasi ay ka qaadeen bogga Instagram-ka ee Villa Soomaaliya ay ku xidhan yihiin in ka badan 37,000 oo qof ayaa la ogeyn cidda u fududeysay in la jabsado iyadoona arrintaasi ay wejigabax iyo ceeb ku tahay waaxda warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya ee gacanta ku haysay bogga Villa Soomaaliya ay ku leedahay barta Instagram-ka haddaba Maxamuud Carab oo iska duubay muuqaal aad u dheer oo soconayay muddo dhowr daqiiqo ah kaasoo ku dhaleeceynayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa kan nala daawada qaabka ay u dhacday arrinkaasi kulanti waxaan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay muuqaalka laagta saara siina sheergareeya haddaba waxaan ku bilaabayaa odayaasha mudullood ayaa hadlay waxayna sheegayaan in xasan garguurta deegaanadooda uu ku soo hogaaminayo Sanae Cabdulle ee kuwa lamid ah sida hadalka u dhigeen kuwaas oo isbaarooyinka iyo dagaalka qabiilka doonaya mar kale in deegaanadaasi ay ku soo noqdaan ku dhawaad 12 sano kadib sida odayaashaasi ay leeyihiin sidaas dartoodana ay qaateen hubka halka beesha cawaadlana khayradaan ay u dirtay beelaha Soomaaliyeed kala dhan ah dagaalyahanada al-shabaab waxaa odayaal iyo weliba xildhibaano gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo qaybo kale ayaan idin soo gudbinayaa waxaase soo hormaraya Sanbalooshe oo sheegaya waa xildhibaan Sanbalooshe horena qalbi dhagax u dhiibay ayaa sheegaya haddii Hiiraan laga adkaan waayo shabaab in aan laga adkaanaynin asoona sheegay in xilligan dagaalka dhankooda aysan sii wadi karin waxaase baaqa u diray qabiilo badan oo adiga qabiilkaaga uu ka mid yahay laakiin gaaljacel baadcadde dajeele jareerweyne iyo qabiilada kale ee la daga Hiiraan macnaha wuxuu isiiray ma dagaalami karaan oo way liitaan miya ma aqaan muusan ku soo darin baaqiisa haweesa waxay sameeyeen muufo boondheere waxay leeyihiin muufadan waxaan qaadaynaa aan geenaynaa maxaas markii wadada la furo ama cadalle ama sidoo kale ruumagood ceeleer iyo meelo kale hadaba muufada boondheere lagu dubayo ee bacaadka la raba in la marsiiyo goorma ayay ciidanka gaaraysaa Zaara Indhayar Khadiijo Diiriye iyo sidoo kale gabadh islaanta lagu magacaabo Sacdiyo Jawaahir Barqab iyo habro kale ayaa yimid muufa dubo ayay boondheere ay ka wadaan ayagoo la dhahayo muufadan waxaan ku dhiirigelinaynaa ciidanka haddaad run sheegaysaan sida nabadoonkii geesiga ahaa ee beesha cali madaxweyne furmaha dagaalka aada islaamiyiina dhiirigeliya ragow xasan sheekh oo adigana ka soo bax Villa Soomaaliya iyo bana buruufta aad ku dhex jirtid ciidanka amisom dhiirigeli ciidanka wax ugu yaraan 3 habeen oo kali ah meel u dhow furmaha dagaalka aad tuuta gasho sida xildhibaanada qaar ay sameynayaan si sawiro ay u soo galaan tuuta ay u gashanayaan adigana bal hal mar sidaas samee waa dhiirigeline waxaa loo baahan yahay in dagaalka la wada galo ilmaha madaxda ay galaan haweenka ay galaan la wada aado laakiin dadka masaakiinta ah yaan la qatalin kulanti waxaan oo wanaagsan qiyaarta arrintan ayaa aad uga yaabisay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyadoona gacanta uu galay barta Instagram-ka ee dowladda Soomaaliya ay leedahay ee Villa Soomaaliya shakhsi kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ayaa tan fajac iyo yaab ku noqotay ummadda Soomaaliyeed